waxaad ogaataa marka qofkan saaxirka ah ninka ah ama gabadha ah mar walba oo ay gaalnimadiisu ay daran tahay sixirkiisana inuu sii laaban yahay oo uu sii daran yahay aad u sii daran yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. meel walbo aad iga daawanayso si walbo aad ii daawanayso waxaan ku rajeynayaa in caafimaad qabto sida aniga aan caafimaad u qabay insha Allah. haddii aad xanuunsan tahay Allah ku caafiyo, haddii aad caafimaad haysatane caafimaadka Allah ku ziyaadiyo. maanta waa maalin kale, anigu waa Macalin Muuse, channelku waa Macalin Muuse official channel. haddii markii kugu horeysay ay tahay booqashadaada si xushmad ay ku dheehan tahay, waxaynu kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saarto, like-ta iyo weliba share-ta, comment wanaagsan oo macquul ahna aad nala wadaagto. anagana insha Allah waynu kaaga soo jawaabi doonaa haddii aan leedmo. waxaa jiro channel kale oo anaga aan leenahay, isla anaga aynu leenahay. haddaad maqli jirtay unu kale ma aho channelkan asagana anaga iska leh, magaciisuna waa Engineer Ismaaciil Cabdi. ha hilmaamin isagana inaad subscribe saarto, xagga dhalinyarada ayuu u janjeeraa, xaggaasuu u fiican yahay channelkaas insha Allah. halka channelkan uu yahay channelka weyn ee Macalin Muuse. aad baan ku soo dhaweynayaa, aad baan idin soo dhaweynayaa. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago jinniga saaxirka. qofka saaxirka ah jinniga siduu ku keenaa, ilaahan ka magan gelaynaa. ilaahay artul saaxirka iyo camalkiisa ilaahan ka magan gelaynaa. laakiin mawduuca maanta wuxuu nala galay ninka saaxirka ah sidee ayuu ku keeni karaa jinniga. mawduucaas waa mawduuca aan ka hadlayna maanta. waxaan rajeynayaa inaad si fiican insha allahu tacaala dhigihiina ii amaahaysaan. waxaan rajeynayaa inaad wax badan oo eedaan horay eedaan u ogeyn inaad ogaan doontaan. waayahay, ugu horeyn sidee ayuu saaxirka, ninka saaxirka ah jinka siduu ku keeni karaa goobtiisa shaqada, ama siduu kula heshiin karaa? sidee u heshiin karaan qof saaxir ah iyo jin? sidee wada shaqeyn u dhex mari kartaa? su-aashiin waa kasaa. inta badan waxaa jirto heshiis dhex maro ninka saaxirka ah ama naagta saaxirada ah iyo shaydaanka. wuxuu ku salaysan yahay heshiiskaasi inuu saaxirka waa inuu sameeyaa, ninka doonaya inuu noqdo saaxir ama naagta doonayso inay noqotaa saaxirad, camal shirki ah oo gaalnimo ah oo ay diinta islaamka ay kaga baxayso. hadallo noocaas oo kale waa inuu ku hadlaa ama inay ku hadashaa, si qarsoon ha ahaato ama si muuqata ha ahaato. markaas kadibna muxuu helayaa muqaabilkeeda? wuxuu helayaa inuu shaydaanka uu u adeego saaxirka, uu u khidmeeyo saaxirka, uu u soo diro qof u adeegayo oo isaga wax walba oo uu dhaho u fulinayo. waa saaxirka wax walba oo uu dhaho qof u fulinayo ayuu mataqaanaaye ayuu keenaya. okay, yaa heshiinaya marka? ninkan saaxirka ah ama naagta saaxirada ah ayaa waxay sameynaysaa, waxay la heshiinaysaa jinniga ama shayaadiinta. qabiilay leeyihiin jinniyaasha iyo shayaadiinta. zaciimkooda ama hogaamiyahooda ama sayidkooda, waxaad tidhaahdaba, ayuu heshiis la gelayaa. wuxuu kula heshiinayaa oo uu sameynayaa wax allaala wuxuu raba zaciimkaasuu saaxirkan ama saaxiradan u sameynayaa. zaciimkiina wuxuu u adeejinayaa marka jinnigan doqomeynta ah ee yaryar mid ka mid ah ayuu u adeejinayaa oo uu leeyahay waa inaad u adeegtaa hebel ama heblaayo, waa inaad u adeegtaa, warkiisa aad maqashaa, wax walbo amarkiisa ahna aad fulisaa uu leeyahay. waxaad uga sheekeynaysaa uu ku leeyahay, waxaad u fulinaysaa uu ku leeyahay. dhacdo walbo waa inaad la socodsiisaa oo aad ogeysiisaa. haddii uu u baahdo 2 qofood inaad kala geysid, waa inaad kala geysaa. haddii aad u baahatid nin naagtiisa inaad ka fogeysid, inaad uga fogeysaa. waxaasoo dhan waa inaad u sameyn kartaa, aa u samey siduu leeyahay. jinniga markaasu wuxuu leeyahay amarkaagaa jiro sayidkaygiyo. saasaa lagu heshiinayaa. kadib maxaa dhacaya marka? kadib waxaa dhacayo jinnigii ee la yidhi khidmadiisa u sameey ee saaxibkan la shaqeey, jinnigii la dhahay ayaa wuxuu sameynayaa
adduunka qofka uu ugu neceb yahay noqonaya qofkan uu adeegayo oo saaxirka ah oo noqonaya. maxaa yeelay haddii uu caasiyo amarkiisa jinniga muxuu sameynayaa saaxirka muxuu sameynayaa ziciimkii uu tagaya u dacwoonaya jinnigini waa xanaaqaya marka waa lagu qaylinaya waa la canaananaya waxa la leeyahay waa ku bedelaya leeyahay shaqadaas waa ka bedelaya mushaar ugu malid leeyahay waxa soo diidaya. marka sababta keenta waxa waaye saaxirka iyo jinnigan la yiri la shaqeey cadaawad xuna ka dhaxayso marka mar walba. saas daraadeed marka waxaad arkaysaa jinniga inta badan waxay dhibayaan qofkan saaxirka ah. midkan sixirlowga u tagaayo iyo saaxirka yaa dhib badan mataqaani saaxirka dhib badan jinniga dhibaayo habeenkii ma hurdaayo hurdo fiican habeenkii ma gashanayo marmarka qaarkood waxa arkaysaa qofkan saaxirka inuu naftiisa u dhibayo isaga oo aanan ogeyn madaxa xanuunayo hurdo la'aan maxaan ku raahdaye walwal fara badan oo habeenkii ah. waxaad kaloo arkaysaa waliba inta badan nimanka saaxiriinta iyo gabdhaha saaxiraadka ah ilmo ma dhalaan. maxaa yeelay jinniga ka dilayo ilmaha intay yar yihiin caloosha hooyadood ay ku jiraan jinniga ilmaha saaxirka wuu dilayaa inuu ilmo dhala ma rabo. sidaas daraadeeda ayaa waxaad arkaysaa nimanka qaarkood ee saaxiriinta ah ama naagaha qaarkood ee saaxiraadka ah inay shaqadan ay isaga tagayaan iyaga oo raadinayo ubad inay dhalaan. waa inay haddii uu rabo inuu ubad dhalo saaxirka waa inuu shaqada isaga tagaa waa inuu sixirka iska casilaa waa inuu toobad keenaa waa inuu ilaahay uu soo noqdaa. intuu barnaamijka sixirka uu ku jiro ilmo ma dhalayaan ma tarmayaan. gabar saaxirad ah iyo nin saaxir ah inta badan ma tarmayaan. waxaa jirta marka qiso hadda ka hor dhacday oo ninka kitaabkan aan ka soo guuriyay oo uu qoray wuxuu leeyahay maalin maalmaha ka mid ah waxaa la iigu yeeray gabar xanuunsan inaan daweeyo. gabadhii xanuunkeeda wuxuu ahaa sixir. quraan ku akhriyay quraankii markaan ku akhriyay kadib waxaa dhacday ayuu leeyahay inuu ka dhaxalay gabadhii jinnigii sixirkan loo wakiishay ee loogu talagalay ayaa carabkeeda ku hadlay. markaasuu wuxuu yiri walaalow anigu kama bixi kara gabadhan. sheekha markaasuu wuxuu leeyahay waxaan ku yiri oo sabab maxaadan uga bixi karin. markaasuu wuxuu yiri sababtu waxay tahay waxaan ka cabsanayaa inuu idilo qofkan saaxirka ah inuu idilo ayaan ka baqayaa oo haddii aan gabadhan ka baxo saaxirkiya idilayo. markaasuu wuxuu yiri oo waa ka dheeraan kartaa meel uusan ogeyn saaxirka tag gabadhan ka dhaxbax meel uusan saaxirka ogeyn iska tag orod bax. markaasuu wuxuu yiri wuxuu iga soo daba dirayaa jinniyaal oo isoo haleelayo ina soo qaban doona ina keeni doona. markaas waxaan ku yiri haddii aad islaamto oo diinta islaamka aad soo gasho oo toobadaada aad iclaamiso si xaqiiq iyo ikhlaas ay ku jirto waxaan kugu caawin karnaa markaas inaan ku barno aayado qur'aan ah oo jinnigan gaalada ah shartooda ka badbaadinayso kana badbaadinayso. markaasuu wuxuu yiri ma doonaya aniga inaan islaamo waxaan sii ahaanayaa kristaan sii ahaanayaa. sheekha markaasuu wuxuu yiri haddaba haddii ay saas tahay diintu qasab ma ahane haddaad kristaan doonayso kristaankaaga iska haw laakiin muhiimadeenu waxa weeye inaad gabadhan aad ka baxdaa korkeeda waa inaad ka baxdaa. markaasuu wuxuu yiri ma baxaye. sheekhi markaasuu wuxuu leeyahay quraan ku aqriyay jeer uu gubtay oo uu qeeliyay oo uu yiri waa baxaya waa uuna ka baxay alxamdulillaah ayuu leeyahay. idan marka waxaad ogaataa marka qofkan saaxirka ah ninka ah ama gabadha ah mar walba oo ay gaalnimadiisu ay daran tahay sixirkiisana inuu sii laaban yahay oo uu sii daran yahay aad u sii daran yahay. marka saas daraadeeda jinniga marka uu rabo inuu saaxirka jinni la shaqeeyo koow maxaan dhahnay waa inuu gaaloobaa ereya gaalnimo ah waa inuu ku dhawaaqaa si qarsooni iyo si muuqato intaba waa inuu diinta ka baxaa. labo wuxuu ka soo marayaa jinniga kuwooda waaweyn ee madaxda sare kuwa ah xaggoodu ka soo maraya si loogu diro khidmo kuwan yareer ay uga adeegaan. intaasi markii uu sameeyay kadib ayuu jinniga marka ku shaqeysanayaa saaxirka markaasuu ku shaqeysanayaa jinniyaashan yaryar markaasi warkiisa ay maqlayaan oo ay leeyihiin samcan wataacan ay leeyihiin. insha allahu tacaala kani wuxuu ahaa bilowgii barnaamij aynu hadda kadib daadihin doono oo ku saabsan sixirka iyo arrimihiisa iyo qofka sida uu u galaayo qofkan mariidka ah ee mataqaanaaye la dhaac ku faayo sixirka iyo jirooyinka ayaynu ka hadlaynaa insha allahu tacaala. marne waynu isku dheelatireynaa insha allahu tacaala mawduucyada aadka muhiimka u ah ee dadku aadka u jecel yihiin inaan soo qaadno insha allahu tacaala. maanta
درسينا مع عشركينا halkaas uu ku egyahay insha Allah ina ka wada faa'iideysateen waa rajeenaya maadi haydin ka gaadho marka la waxa isxusuusin mudan subscribe like share comment qurux badan inaan wadaagto waa anigoo macallin Muuse muuqaalkan inta aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagay oo aan idin leeyahay salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh nabadi